بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي حبيباتي قالياتي دمان وإذا السلام ملك استوديو دافيد وقنوشهين ومركلي ولاشين في السنكاهي أحلى قصص يقيبتيني سدحات قصة دي نوسعتي جمعة وناكسنا إذا ليها ملك استوديو قنوشهين مركلة ما شاء الله تبارك الرحمن أنت قصة قلين أبايوينا وحي وسقرين كومنتيغا أباي فلسان ساعة وقت بدن فيديو نصو دوب أبايوين وهذا إنك جواب حتى كهرة وحن صوت دوب فيديويال أفر قصة يوحك بدن أديك ساعة وحر لمن ضد فيرسة ملهن مهمة وحيتها إنك فائدة ضد كان أحلى قصص يقصون عبرة قصص وعبر قصص وذكر ذكر غير كين معذب كجرتو إنك هو نقاطان ولا شو وحي سميسو خير gabdhaheena Soomaaliyeed la qaybsadaan ayagana horumarka ay ka gaartay xagga diinteeda markay u soo laabatay iyo markay mataqaanay qaflada ka baxday macnaha qaflada waxa la yiraahdaa qofka inuu mooganaasho inuu ku jiro qof aan waxba dareemeyn dareen la'aan ku nool hadhow markuu inuu wardiyo oo tasbiixsado oo maaragtay sheeg khayrkii nimcada la yimaado iyo faa'iidadii oo ka helay macnaha ma sha Allah tabaaraka dadka noocaas isku mid ma marka qofka iska dhiban oo qaflo ku jiro uu dhiban yahay qofkan dhiba iska haysto laakiin ma fahamsana inuu wardi fara badan aqriyo ma fahamsana inuu ilaahi salaadihiisa dukado salaada macnaha shanta waqtina isku dukada laga yaabaa oo la yimaado maaragtay salaatu muraad salaatu leel u kaco si oo yaqiin amba ikhlaas oo ilaahi subhanahu wa ta'ala boqorka ugu laabto oo adduunyadan ku raadin wax kale ugu naxariisana ma jirto oo wax sii karo Allah aheene macnaha oo waqti iska dhuminin oo meesha ugu fiican tabaast qofka oo aadi karo oo u laaban karo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala boqorka ahay tahay malikul muluk hada u laabatid macnaha inaadan helis waxa adiga u baahnid iyo dibka ku haysto Ilaahay ka dul qaadi karo dad badan ku baraarugsaneen marka waxay noo tahay qisooyinkan dhiirigelin wacdi iyo maaragtay ma sha Allah tabaaraka rahmaan wax aan ka helno nafsadeena saameyn ku yeeshto markaan aragno waxa sometimes aad la yaabtid oo haddana gabar walaasha Soomaaliyeed la mutaqaanay ay kula qaybsanayso oo ay soo martay ay tahay oo haddana xilliga hadda lagu jiro ay tahay ma sha Allah marka waqtiga idin ka dhameenin ahbaabi saas darteeda marka ma soo badin kari dadka inay ka faa'iidaan rabaa saacado badan qofku dadku ma fiirsadaan mid xigto waxay tahay abaay waxa leeyahay dhahay noo soo badi macnaha oo noo soo gali maanta dhan wallahi waa isku dayaa inaan la soo cararo la soo dhaqsado isku dayaa inta karaankeyga hore in kugu sheego qof iska busy badana marka ma sha Allah tabaaraka rahmaan halkaas uga baxayna I love you too much dhamaantiin saaid ilaahi dartiisa wallahi idin jeclaa qaybkeed kaga soo duxiye saaid jeceshiin commentiyadiina aad u qurquruxda badan iyo qalbigiina nadiifka ahne uu dhiirigeliyaa waxaan ka qaataa shidaal ilaahi idin barakeeyo marka insha Allah ta'ala biidnillah kariman lana sii shargaray walaalihiina ilaahi idinkiis xabiibaati in leegtana u badiyo leegta waxay saacidaysaa inay dadka arkaan insha Allah ta'ala biidnillah kariman khayr aan dhamaana idin rajaynayaa waxaan noo bilaabayaa qisooyinkeena abaay waanigi idin dhahay ilbaabka loo soo qarqaraacay laba askari oo soo qarqaraacay waaga soo bari rabo abaay ilbaabkii furtay ilbaabka day furtay labada nin waxay ku dhan heblaay miyaha sorry ay dhaheen maaragtay sheeg ninkaagi wuu dhintay naxtin idhahdaan shil baabuur ku dhintay wasaawada idinka dhan aad wada sugaysiin dabcan u maleynaysiin marka wuu dhintay shil baabuur ku dhintay dhaheen waxay dhahdeen naxtin anigi waxay dhahdeen mataga isoo dhaaf bahal matagan sii daayir waxay dhahdeen waa la igu soo aruur askartii oo dhan waxaa la dhihi tiri gabadhan 13 habeen dhalan intaanu ciyaalna haysato xaaladeeda ma sugno ana waxay tiri ma ihi heerkaas ma gaarsiisnay ilaa qalbigaygu ii celiyay oo waxay dhahday waxaan ahayn alxamdulillah waxaan ahayn ma ka bixin afkayga macnaha alxamdulillah ala kulli xaal qofkii inuu yiraahdo waay alxamdulillah ala kulli xaal markii qof wax uu jeclaysanin ay ku dhacaan
alxamdulilah calaa kulli xaal macnaha ilaahan ku mahadina xaal kastoon ku suganaha waa xaal kastay tahaba. Marka qofka muslimka saasaa laga rabaa. waxay dhahday dariska ay yimideen dadkii waxay leeyihiin allah gabadha umusha ah mataqaanaaye naxtin waaye dadka umusha waxa ku dhaco wax markaas dadka for example qofka markuu caadiga yahay markuu umusha isku mid maahan umusha markaa ku jirtid waxaa lagu leeyahay ilaa iyo 40 days aniga macnaha 2 bilood ilaa 6 bilood qofka maskaxdiisa waxaa ku dhici kara wax oo xanuun magaciisa hadda ma xasuustay ku dhici karo qofka isla hadal depression ku dhacayo oo maaragtay qofka inuu wax maskaxda ka gaarana laga cabsadaa. marka ay waxaan cadaankan waxaas ay ugu baqanayaan gabadhana miskiintan eed laakiin way naxtin ugu filanay tir xaqiiqatan ninkeyga aad aan u jeclaayay tir aad weligii isma qabanin saaxiibaan ahayn hadallada inta telefoonka aan ku jirnay tir qadka oo ku sheekaysanayna hadallada idhahay qalbigeyga ma ka go'i karaan ay dhahday oo inuu jecelkiis ii soo bandhigto macnaha oo ii sheego inuu jecel yahay oo ii sheegay tir markastaba daqiiqad kasta bye I love you so much iska seexo wallaahi waxay tir hadalkiis ugu dambeeyeen wuxuu ahaa tir ilaahay amaana alla baayo macnaha astawdicukumullah waa carab ahaan waa waxaan isku xijaabno. marka abaayo marka saasaan dhacday waxay tiri maxaa soo haray ilmihii yaraa gabar yar oo waxay tiri 2 sano jirto gabar yar 2 sano jirto waxay tiri ay sii qaracay masiisa qaracan subxaanallah. waxay tiri abaayo waxaa dhacday tiri baabuurka oo asiga leeyahay wadaadkeyga lahaay irid inuu ku baarkimaya maanta dhexdeeda baabuurkiisa waa kana daadi goormo soo laabanaa hooyo mami goormo daadi imaana daadi aaway waxay tiri guriga sakriyaadkii ayaa macnaha xasuustiisa yaa taalo meeshuu fariisan jir everything macnaha guri oo waa dareemi kartaa ninkaada kugula noolay hal mar aad weysay. waxay dhahday waa xamil waay oo adkayso waay soo baxay dhahday magaaladii ka move gareeyay dhahday waa ka soo guuray magaalo kale tood soo degta abay oo Mareykanka kamid magaalada abay degantahay waa xaafada special aniga aan hada deganahay xaafadani deganeeday oo guriya macnaha xooga ii jiray deganeeday meeshii u guurtan waa magaalo kale tood ayadana dhowr saacadood noo jirto oo diyaarad ee u guurtay oo abay way ka guurtay xaafadani way ka guurtay gabar walaal aqaano waa walaal ma sha Allah. abaayo waxay haysatay caruurteedii ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka in badan u bariyay tiri in badan inuu ilaahay ila korsho agoontaas leego imtixaan in badan ilaahay u bariyay tiri saa ilaahay ugu bariyay way noqotay dhahday. waxay dhahday ilmihayga ma sha Allah tabaaraka raxmaan horta waa baxay tiri waxaan waday vacation inaan wado wadanka Kenya geeyay tiri soo dahday markaas halkaas joogeen ayagana aan maaragtay waxay tiri soo booqdeen hawadii u soo bedelay. waxay dhahday before horta taas intaysan ilmaheeda iskoolkii number 1 ma sha Allah tabaaraka raxmaan ma sha Allah tabaaraka raxmaan ilmaheeda number 1 u galeen everything oo ilaahay ku guuleeyay. marka warehouse ka loogu yiro markaas Obama haystay tiri cunugeyga casuumay ma sha Allah oo number 1 ilmaha markay galaan maxaa la geeyaa gurigaas la geeyaa ayaani ku soo noolaadaan maalmo miya ma khamis bil ama qnani tiraha abaayo aan ku soo noolaan soo laabanay dhah. waxay dhahday hadan wadankii geeyay awoogoodii cabaar la soo joogeen. waxay dhahday aniga waan soo guursaday ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka hadan nin kale ugu israaqay oo asigana aan dhihi karay tiri maanta tan hadan ku sheegay tiri fiilsanay wallahi ma kala dhacaanay tiri waxa ilaahay ugu israaqay tiri mid asigana ilaahay iigu talagalay agoontan oo umad qof oo isoo diray ila korshay dad insaanaha ku jiro agoonta ilaaliyo oo maaragtay ma sha Allah naxariis badan oo ilmahooda kala ka soo qaarna waa dibadii marka gabadhan waxay tiri ma sha Allah tabaaraka raxmaan wadaad igu soo aadanay tiri ilmahaas ila koriyo dhexda u xirtay. waxay dhahday
أحد عدي ترى المهيجي بالكيجي ما شاء الله تبارك الرحمن كلاشكي يبي إنه وهذا الكتاتر هذا حالة سنة كان له لما يربى هذا أنكو جرنو حيث رح جامعة ديسو إيكال everything good ودن كان وحواي هو يمركات هاي وهدنا إيشيك المها أبوه إيه وجيهن أيوة أقل لا إيه معناها أم بكسو تجين أم دينتي ودن كان مركا هو يكلي يكون قنيسا إنكستو أب لا جوجو أبها لا جوجني أبي واستفاضل واي حد هذا يقوم دبن إلهي إيجا معناها ilmo iga saaqido oo dhibaato aan kala kulmo noqon tiri ilaahay wuu ii toosi tiruu ii leeyin macnaha wuu ii toosi kaala arag ilmo baari ah oo hadalkayga hadal ka dambeeyay isin jirin oo waxay tiri kaala arag akhlaaqday leeyin oo tarbiyada ay leeyin oo si wax u baranayaan maasha Allah tabaaraka raxmaan maasha Allah tabaaraka raxmaan ah ilaahu barakeeyo ilaahay il cadu il shaydaan intaba kama tusiyo ilaahay inta dhiman Allah dhameystiro nolosheeda inta uga dhiman ilmaheeda iyadoo ما شاء الله تبارك الرحمن مركا أبايو waxaa qiso kala ku dhacda iyadana oo maragtay guryoonayso way dheertaa qisadaas hadda waxaa fiican marka inaan saas u kala gooyo oo qisadan aan halkan ka bilaabo iyo mataqaanaa qiso hooyadeeda qusayso wixii oo dhan marka fiidiyoga dambe aan noo soo sameynaya walaalahayga qaaliga ah khayr iyo barakaan dhammaan ayna kaga tegay hana noqoto qisooyin laga faa'iido aysan noqonin qiso maaragtay inta la dhageysto la iskaga tago isbishil gabdhaha dhalinyarada ah wardiga badiya salaga nabiga calayhi salaam badiya shanta waqti kulli waa la dukadaa ma sha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala boqorkaay inta ku dhibtayna Allah u fududeeyo inta haysatana Allah u ziyaadiyo shantooda waqti u dhaqaaqo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu khayrkeena macadana waafajiyo dhamaanteen خير إبركان دمان أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته